munaasabadan ay ku qalin jabinayeen ardayda waxaa ka soo qayb galay maamulka macadka macallimiin dugsiga quraanka soo dhigi jiray oo ay ka aflaxeen dugsiyadooda badi bulshada ku nool Baydhabo iyo culimaa u diin kale. xafladda qalin jabinta oo ka dhacday hoolka shirarka ee jaamacadda Koonfurta Soomaaliya ayaa Sheekh Maxamed Macallin Khayr oo ku hadlayay magaca waalidiinta macallimiinta iyo ardayda qalin jabinaysa waxa uu ka sheekeeyay sida macallimiinta quraanka kariimka ay u yihiin lafdhabarka bulshada iyo hagayaasha ugu horeeya ee mas'uulka ka ah diinta iyo faafinteeda. marka la meesh ay dadka loo qoro maanta macna saas ka batisiin sheeg una hatta may baa hadii macallimiinta inay diintan may baa lan kala hortan moqon male diintan koran qaado sheelan moqon male dad in koran qaadano iskoolada hatta sheekh hatta in kor ku marsaano diinta ilaahay oo kas in ku sarreeyta tusiyaan fadadku la hatta geeka rasuulha bahayo suwal waalada darada amra male dadkan leey العلماء ورثة الأنبياء حتى أنت معلمين هاي معرنا إلهي كل أرسيه موجود ولا كان تكون تطلع الدين تذكرون قاعدة بالفضاء يوم كان ما يبغى معلمين هدي أو إلهي أبصير إسكال ميسدانو خرطي إلهي سي كال ميسدان ومدب هانكو جامعات ومدب يوم ما بلاي معلم كسته كيف بقولون ولا نك كيف خمتم ولا نك ما قالوا هم بلقي بي معلم لي لكن يجي يدرسون سيادة نملة كم مقالة حكومة وحكومة كاس مقالة حكومة معلومة حكومة أو دكتور ليفال مقالة أمر كشيء مكور بويكور دين تنسى كور نقدر فدي ما يبغاها دكتور قال جوكي. Sheekh Xasan oo ka hadlayay munaasabada ayaa waxa uu ka sheekeeyay fadliga uu leeyahay barashada Quraanka Kariimka. anta aayada taqwada ku haladaas may baa wala hadal ha koobo korna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku obsanay tan kale may baa waliya ku taabaday طبعا ما يبان إن شيء جيك الدم يا قرآن كدمايا ما شاء الله والإذن فيلو قرآن الدمايا والمفيل من الله ما يبواه إلهي سبحانه وتعالى هذا الشيء يسر الشيخ بني شيئاي هذا الإلهي هذا الذي أردن يكون فضل بدني سد إلهي مخلوقات كأنكم فضل بدني هذا الشيء أنكم فضل بدني هذا الذي بني آدم كأردن marka wala in neeska kooyo fadi wala in ka khayr badan ay neeska kooyna oo ilaahay kalaam shay dadamay oo la takriimiyo dadkaasay may la siiyay shahaadi la siiyay lanka markuu sataa bahayo inta soo ma dadka hortay shahaadada ka qaadado oo may baa sawirka ka dhigayo dhash bari dhacday may baa farax laakiin farxad oo tamba ku badan ma jirto ilaahay subhanahu wa ta'ala may baa ka tilmaamay dadka quraanka gorado dad ee qiimo badan markii uu saxaku hadalay imaam shaatibi mari wa khayru jalisin fizza wa khayru jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula ulumada kalena marana wa khayru jalisin fi zamani kitabullah aswa faqaya walla la fadeedo waqti la kallumiya may ba anka khayr badan kitabka ilaahi imaam shaatibi markii uu go'ayay hawada maray فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. qaar kamid ah macallimiinta ardayda ee baratay cilmiga Quraanka Kariimka oo iyaguna ka hadlay xafladda ayaa waxa ay dul mareen ka hor macadkan inta aysan wax ku baran iyo hadda ay joogaan xafladda qalin jabinteeda sanad dugsiyeedka macadka farqiga u dhaxeeya. dhamaantii way baan jeedii ilaahay horta inay oo seedano macadki wal ku baradan ko may weel aan madaw ma ismaleeyay إني أنا لا تجود كسو لكن إن قرضنا أننا تنفتي معلمها معلم قرانها حتى بتكسين فورين لكن ما إننا قدي لما تلي عليك وما لا أمبلا ما نفرنيا كتماني أمره سوبتو والضحى إبرة بالناس هذه يومين ذاك جرنا إن تصب بلد كيك بوي وهلا ما ظهر لين كنا نقول سعادي ألف اليوم أنت أسكت إلى يتمنى سورة جديد إني معلم كميل فدي ونودعنا ساتين جس كاملة هل ما ميل فدي جس كوبات تن تاسنا فتوى إلهي لك الديره الحمد لله.
Sheekh Ibraahim Maxamed Cali oo ah maamulaha macadka Ibnu Shaadibi ay ardaydani ka qalin jabinayeen oo hadalka gabagabadii munaasabada qaatay ayaa waxa uu ka warramayaa macadka iyo siyaabihii loo unkay waxa uu hirgelay iyo waxa uu higsanayo hormaas kadib oo ajilada iyo dadkaas khibrada macallimiinta kadib warbaahinta daraw waray sheeglahay way sheegay bas ay baa iska diiday taariikh yar oo kooban oo macadka ka saabsan معهد كسيس موجودين معلم عمر الشاي عاب حلقات كبلاودي مساجدها كبلاودي وأماكن خير بدل أو إلهي جي نكجير بلدي مساجدها كم ده مرك جدد حرمرني ما يولنا هنا مساجد كي أنت اللي أو نحكمنا قريك راينا سواء يتوي فئات المجتمع أولا خفايد السودان ما يولنا مساجد يعني أنا حقل القرآن دلوم بس أو حفاظة قابناي كدب ما يسمعينه أنتي أنا توي بالكراي كيلو سبعة قريك مدة قريك العراو دبق ولا لا كدب ما يبقى إلهي سورة الجلية أنتي ونا معك مردلنا قريك إمارة كاملة أو مطلع كسمايسين ما شاء الله هو حرون فيلة أو نكتر قالي أردي ير أو فربرة إيو جاب تيوريل كبرنا أو تأهيل المعلمين تيه لما أنتوا نسكجران لقابدي ما عاد كأول كلام له هاي دوره بلا وده جري ما يبقى البدل يتوم إلا مسافر بلا وده إلى يهميك إلا مسافرني ما عاد كإمام الشهادة بما كبرت أنا ودفعت لما أو شهادة لسياو سؤال ما جرت ماشي إجازة بالله نعم إجازة درت لكن أي لسيا إجازة شهادة شرعية إجازة شروطة ولي وها مستعد لكن متيسة لسيا إن شاء الله تعالى ما يرجعنا أيامهم مسبراه صادق يعني أنتي ونبيدهم أرديني قال جبيه تحفردي ونرومي إيه أرديني هتنمايتي أو هريتي تفردي كوبا إيه تلما الإسكدران حاني متيسي يا قاضانا ما يبيدون إن شاء الله تعالى قضونا بإذن الله الكريم هتي إلهي نسورة جري حفلة أو كرامة أرديني إجازة متيسيتي ardayda macadka ka aflaxday ayaa ah difcadii labaad ee macadka ka baxda oo dhamaysata barashada cilmiga quraanka kariimka iyadoona ay xubsid mudan tahay in qaarkood ardaydani yihiin macallimiin hadda wax ka dhigta dugsiyada quraanka ee ku yaala Baydhabo waxayna macadka u galeen in ay ka bartaan cilmiga tajwiidka ee macadka imaamu Ibnu Shaadibi uu yahay mid loo unkay in uu ka saxo macallimiinta dugsiyada quraanka dhigta cilmiga barashada quraanka kariimka alladheena ya'lamuuna walladheena laa ya'lamuun innama yatadhakkaru ulul albaab qul ya ibadilladheena aamanu ittaquu rabbakum للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار مختار شيخ آدم دلمر تلفزيون كي راديو دلسن برشون ويني بيدا بجناي